الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي شناد يا كتاب كيني حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم رحمه الله. درسي قدام بي وحان كهذا اللي وحل إلى مفاتيح الخير خيرك فريهيس. هل كان وحان كشيغينا يساقنا مفاتيح الشر شرط إيا حمان تفرياش يدا مفتاح كل شر شر oo dhan furaheedu horta waa xubu dunya wa tuul amal baa la yidhaahdaa. waa adduunye jacayl iyo yididiila dheer. adduunye jacayl waa midda wax loo laayo oo dadka loo dilo. ummadii maxay isku dhammaysay maanta? waa adduunye jacayl. waa midda xumaan loo sameeyo, waa midda wax loo dilo, waa midda wax loo dhaco, waa midda wax loo xado, waa midda waxaasoo dhan waa adduunye jacayl baa shar albaabkeed ah. iyo tuulul amal ayuu diila dheer. qofku waa inuu ka maahmaahdo inuu waxaa samayn doono, waxaan qaban doono. kan laguma diidana inuu qofku talagal iyo uu qofku uu sameeyo iyo shaqo iyo adduunkiisa u shaqaysto, laakiin inuu noqdo un qof adduunye israaciyey weeye midda laga hadlayaa. ashirku walkibru, shirkiga oo gaalnimada ah iyo kibirka isla weynaanta ah iyo in laga al-icraad in laga jeedsado wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala rusushiisa la soo saaray. al-ghafla can dikri, in ilaahay dikrigiisii la halmaamo iyo qiyaam bixaqi, yani in loo istaago wanaagii inuu qofku garab maro, waa miftaaxun linnaar. arrimaha aan ka hadalay naarta ayay faro u yihiin. khamradu waa furaha kul ismin baa la yidhaahdaa. يعني اسم الدنب كستا فريهذا وحوي خمر. قفكو أدو خمر عبو وحبوب دليا وزني سنيا وحول بقى يصمينيا مركو مير كيسو تاغو مركا مفتاح شي كستا خمر هذا فريهذو وإثم يدنب أو دنب فروطه. الغناء هي سها وحي فروئيهن زند. hadduu qofku uu heeso heesahaasi albaabka ay ku marinayaan zinay u socdaan, oo qalbigaagii bay ku dhalinayaan nifaaq iyo xumaan, kadibna zinay u socdaa. idlaaqu nadari fi suwar, fiirsiga sawirada qaaqaawan iyo waxyaabaha xunxun oo la fiirsado waa isaguna miftaax cishqiga iyo waxyaabaha maaragtay aan wanaagsanayn oo qalbigaaga mashquulinaya ayay iyaguna u yihiin furo u yihiin. alkasal waxyaabaha wahsiga iyo qofku inuu wanaagii oo dhan uu ka wahsado waa miftaax alghiiba walxirmaan, yani xanta iyo maanta dhan in lagu mashquulo waxyaaba aan ku anfacaynin ayaa iyaguna albaabkeesa u yihiin. macsiyadu iyo dunuubtu guud ahaanba waxay albaab u tahay gaalnimo furaheedii. gaalnimada furaheeda yani qofku markii macsidiisu ay badato waxay noqonaysaa marka dambe inuu karkaarka weydaarto. marka gaalnimada furaheedu waa macsiyada. kadibka oo ah beentu waa iyaduna waa miftaaxa nifaaqa, waa furihii nifaaqa munaafiqnimada furaheedu been. ila wakii xadiidkii calaamatulmunaafiqi maxay ahayd? 3 idaa xadatha kadab baa ka mid ahayd. calaamadihii nifaaqu waxaa ka mid ah qofku markuu sheekaynayo been bushay. idaa xadatha kadab waidaa wacada akhlaf, markii uu ballan qaadana wuu ka baxaa. waidaa tumina khaana, haddii la aaminana wuu khayaamaa. waxaa riwaayo kale ahayd waidaa khaasama fajar, haddii uu doodayana indhuhu cadayna. maxaa laga wadaa indhuhu cadayn? hadduu doodayo bimacnaa wuxuu isku dayay in isaga aan laga raynin marna ayuu isku dayaa. marka calaamaadkaas iyo kadib buu marka faajirnimo iyo xumaan ayuu ku dhacayaa. waxaa la yidhahdaa ashux walxirs. shuxu waa bakhaylnimada iyo adduunyo lagu dadaalo, waa miftaaxa shuxigaasi. miftaaxii bakhaylnimada iyo furihiisii waa shuxiga iyo wax ku dadaalid iyo qaraabogoyn iyo maaragtay maalka oo la qaado wixiuusan ku habboonayn meeshiisi meel aan ahayn. marka waxyaabaha al-icraad in laga jeedsado wixii rabbi subxaanahu wa tacaala uu inoo keenay waa miftaaxa isagana bidcada.
iyo dalaalada iyo waxyaabaha baadida albaabkoodii wey. haddaba kani waa albaab weyn, waxaa la yidhaahdaa baabun cadiimun min anfaci abwaab alcilm. marka cilmiga albaabadiisa waxa ugu wanaagsan ba waxaa kamid a macrifatu mafaatiix alkhayr washar, in la barto khayrka iyo shartaba furayaashooda. lama waafajiyaa la yidhahdaa furayaasha inuu barto ilaa qof ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajinaya ma ogi. rabbina subxaanahu watacaala khayr iyo sharba wuxuu u sameeyey miftaax iyo albaab laga galo ayuu u sameeyey. waxaa habboon addoonka inuu marka aada iyo aada ugu dadaalo qof waliba mafaatiixda khayrka iyo macrifa inuu barto, mafaatiixda sharta nafteeda in la barto si laysaga ilaaliyo, kuwa khayrkana si loogu dhaqmo. ilaahina subxaanahu watacaala cadligiisa iyo towfiiqdiisa ayuu ku waafajiyaa qofka u waafajinayo. nicmada iyo fadligana rabbi baa iskale subxaana. ilaahay subxaanahu watacaala khayrka hayna waafajiyo, xumaantana allah inaga xijaabo. baaraka allah fiikum.